waxaan leeyahay waxaad ogaataan qof kasta oo Soomaali ah meel kasta oo joogo ma ahan gobolada dhexe kaliya ma ahan qof kasta oo Soomaaliya waxaan sheegayaa dawlad la'aan waa juhalnimo dawlad la'aan waa cudur dawlad la'aan waa gaajo dawlad la'aan waa cilmi daro waa abaar wax kasta oo xun oo bila aadinku waxay ka yimaadaan xukun la'aan meela xukun ka jiro nolol kama jirto maanta hadii leedahay xukun iyo dawladda la leeyni sameynaya shacabka gobolada dhexe nin kasta waxaan ku talinaynaa wuxuu qababa muddadii rubac qarniga ah wuxuu qababa inta uu laqo ha ka qayb galo maamulkaas ee qof kasta oo gacan si oo meesha ka taaganta gacan ka siiyaan leenahay anagu inta ka bacdi waxaan jalaalahay hal kelmad inaan ka iraahdo dagaalka campaign-ka loo shbaxshay Hindiya Ocean ilmahanagii la duleystay la waalay la doonayo in wax looga qabto aad iyo aad baa lagu farxay markii midkii wixii hogaaminayay si kastaba ha ahaateen in uu meesha ka baxay way kala firdheen haday kala firdheenna waxaan ku tal anigoo aqoon ku hadlaya iska hadli maayo dadku markii ay ciidanku markii taliyahoodu oo dhinto oo kala firdho hadii laga haro waas urursanayaan mar labaad yaa loo ogolaan inay mar labaad is urursadaan yaa laga harin yaa loo ogolaan taas anagu taas haday dhacdo shakigii ahaay Soomaaliya waa mashruuc adaa mooge saas heeski ahay oo kaleeto yeesan uu noqon mashruuc oo sidii ninkii Burundiga ahay oo yiri ma doonayso inay naga dhamaadaan waxaan doonaynaa inay waxaan noo sii socdaan oo guriga naga qabiyo ah ayaanu arkaynaa fallan madaxda dawladda ciidamada caalamka waxaan ka codsanaynaa nimankaas si degdeg ah in wax looga qabto ee aan loo ogolaan inay mar dambe is urursadaan waana salaamantihiin